assalaamu calaykum. waxaa dhacdaa in ay jirto gabar aad ka heshay jeclaan lahayd inay xaaskaaga noqon lahayd oo qalbigaaga ku weyn, ubadkaagana ay hooyo u noqon lahayd. malaha aad aaminsan tahay cimrigaaga inta ka hartay agteeda ayaad ku dhammaysan lahayd. waxaana dhici karta inaad isleedahay gabadhan qalbigayga sidan ugu weyn, qalbigeeda sidaa ma ugu weynhay. waxaa dhici karta gabadhan inaadanba aqoon u lahayn ood maalin aragtay iyo wax la mida ama lagu baray oo maalinta ay kugu dambaysay. waxaa jira calaamado fara badan oo la arki karo oo bannaanka yaalla oo qofku ay tahay in uusan wakhtigiisa ku lumin haddii calaamadaha uu arko. haddaba waxaan fideogan kugula wadaagi doonaa 7 calaamadood ood ku garan kartid gabadhaasu in aysan walaaltinimo wax ka badan kaaga baahnayn intaadan wakhtigaaga iska lumin. calaamada koobaadna waxay tahay markii aad gabar fariin u qortid, kama hadlayo gabar aadan aqoonin. waxaa dhacda in wiilku uu gabar barto ama meel lagu baro iyo wax la mida, kadibna uu social mediaheeda raadiyo ama telefoonkeeda raadiyo, kadibna uu fariin u qoro isagoo oranaya waad qurux badan tahay, waan kaa helay, ilaa maalinkii qalbigaygaad ku jirtaa iyo wax la mida. fariinta nooca ku bilaabataa waa tan ugu khaldan. maxaa yeelay gabadhan nolosheeda ma taqaanid, in wiil kale oo ay kaaga jacayl badan tahay la socotaa dhici karta. waxaa dhici karta wiil walaalkaaya inaad wakhtigiisa adigu sabab u noqotid in laga lumiyo, ama aad sabab u noqotid inaad qalbigiisa jabisid. xaaladeeda gabadhan kama warqabtid. waxaaba dhici kartaba in laba qaboodan ka warhaynin. rag fara badan qaladaadkay sameeyaan bay ka mid tahay gabaray hadda iska arkeen inay fariin isaga qoraan, inay gabaray social media ku arkeen ay fariin isaga diraan iyo wax la mida. haddaad doonaysa sharaftaada inaad ilaashatid, marka hore qofka waxaad ku dadaashaa in aad baratid. haddiise gabadhu ay tahay gabaraad meel ka wada shaqaynayseen ood istaqaanaan, ama iskuul baad dhigan jirteen, ama waad wada dhigataan, ama deris baad tihiin iyo wax la mida, ama meel ganacsiya sibaad ku taqaanaa, siday doontaba ha noqoto, laakiin gabadhan waa taqaanaa. markii gabadhaas walaaltinimo ay kaala dhexaysay, fariin baad u diri jirtay tusaale ahaan, ama waad wici jirtay. markaad wacdid telefoonku ay kaa qaban jirtay. haddii telefoonkaaga aysan kaa qabaninna markay aragto missed callkaaga way kugu soo celin jirtay iyo wax la mida. haddaad fariin u qortid, fariintaada way ka soo jawaabi jirtay. laakiin hadda markii aad dhinac isku dayday xiriir inaad u leexatid oo damac guur uu ku soo galay, haddii fariintaadu ay qaadanaysa muddo dheer inay kaaga soo jawaabto, markaad wacdidna telefoonkaysan kaa qabanin, markaad dhowr beriyo isku xigtaad wacdidna telefoonka intay kaa qabato, markaad dantii aad u gol lahayd aad u sheegtid, ay ku tiraado walaaltinimada ka fiican ma walaaltinimada ku daysid iyo wax la mida, walaalkayu wakhtigaaga ha iska lumin. maxaa yeelay gabadhaasu inay walaaltinimadii caadiga ahayd guud uun keliya aw xiriirkiinu ku ekaado ayay doonaysaa, taasoo micnaheedu uu yahay in aysan dan kaa lahayn ama aysan wax xiisaa kuu qabin dhinaca shukaansiga marka la eego. calaamada labaadna waxay tahay haddii tallaabadaa hore aad soo gaftid, rag fara badanoo waxaa jira ay caado u tahay in ay qasbaan gabadha. waa ku rabaa, waa ku xiisaynayaa, xalaydhan ma seexan, calaacal inuu ka bixi waayo isagoo ku beer jilicsanaya ama isleh gabadhani way ku yeeli doontaa. waxaa dhici karta inay mar ku diiday oo 2 ku diiday oo 3 ku diiday oo sanad haddana qaadatay ood mar laba haddana soo laabatid iyo wax la mida. waxaana dhacda mararka qaarkood inay istiraado bal gabadhu iska aqbal qofkan. waxaad ku garan kartaa markaad tallaabada hore ka soo gudubtid oo inta wax fara badan aad bariyaysay haye intay ku tiraahdo aadan hubin inay hayadaasu dhab tahay iyo in kale, waxaad ku garan kartaa waa calaamadan labaad. calaamada labaad waxay tahay in ballan baad dhigateen, waxaad tiri inaan kula hadlaan rabaa oo waxaa kaala hadlayo wax la mida, inay ballankii kaaga baxdo. telefoonka wakhtiga aad ku ballanteen inaad la hadashid baad wacday iyo wax la mida, telefoonkii lagaama qabanayo. qiilka lagu keenayaa muxuu yahay? waan hurday, waan seexday, qof baa xanuunsanaa, marti baa noo joogtay, cuntaan karinayay iyo wax la mida. waxaana dhici karta ood ku garan karta calaamadda ugu weynay tahay inaad wacdid oo telefoonka kaa qaban weydo oo maalinka ku xigay kugu soo celiso. maxaa yeelay waxaan ognahay maanta mataankeennu waa telefoonadeenna. sidaynu ognahay telefoonku wayna weheliyaa, barkinta hoosteedaynu gelinaa, koomadiinkuu saaran yahay. gurigu qofku gurigiisa kama baxo isagoo telefoonkiisa aan sidan. wuxuu dareemayaa qofku maanta xaaladda bulshada ku jirta marka la eego sidii qofku inuu qaawan yahay oo kale. qof aan social media account lahayna wuuba yaryahay. badi dadku way jeegaranayaan maantana notification baa usoo dhacaya. haddii marka ay taasu timaado oo taa hore aad ka soo boodid ama aad ku indha adeegtid, ilaan badankeen ragga markii layna eego aad baynu u indha adagnahay, tallaabadaa hore haddaad ka soo gudubtay waxaad ku garan kartaa tan. soomaalidu waxay tidhaahdaa doqonka usha agtiisa ku dhufo, hadduu garan waayana madaxa ka saar.
qofka calaamadda taa hore haddaad ka soo gudubtid ood madax adeegtay calaamadda kaleod ku garan kartaa waa in wakhtigii ballan aad ku gasheen inay kaaga baxdo hadhow qiilkay doontaba ha kuu sheegto micno ma samaynaysa mar wakhtigii aad la ballantayba haddii la dhaafay inta markaan ka soo gudubna calaamadda saddexaad ee lagu garan karo waa in gabadhu marka aad fariimo isu qoraysaan ama aad wada hadlaysaan iyo wax la mida ay ku tiraado waxaa tahay saaxiibkay qaaliya waxaa tahay walaalkay qaaliya inay marar fara badan kugu soo celiso taas waxay tusaysaa in maskax ahaan ay ku dareensiinayso in xadka aad joogtaa uusan walaaltinimo ka badnayn damac kale oo igaga kaa jiraa ma jiro weye si kale haddii loo dhigo hadalka adiguna marka aad qofka la hadlaysid waa inaad qofka hadalkiisa dareemi kartid dhanka uu u dhacayo iyo meesha uu jiro haddii aadan qofka hadalkiisa fiirinaynin oo analyse garaynaynin dhanka uu u socdo iyo dhanka wax loo wado luuqadeenna soomaaliga gaar ahaan markaan ku hadlayno ama luuqad qalaad haddaad ku hadlaysid tay doontaba ha noqoto dhanka hadalku uu u dhacayo waa lagama maarmaan inaad wakhti ku bixisid oo fiirisid sida hadalku uu u dhacayo taas waxay kaa caawinaysaa in wakhtigaaga aadan lumin qalbigaaga uusan maaragtay qofkani inuusan ku sii weynaanin ujeeddadii aad adigu lahaydna inaysan kuu suurtageli waayin walaaltinimadii idin dhex taalay ee idinka labadiinna idinka dhexaysana in aysan burburin calaamadda faradna waxay tahay yaa necab in la ammaano markaad ammaantid oo tiraadid waad qurux badan tahay inay hadalka kaa leexleexiso maya ma qurux badniya naga dhaaf waxaa hadda hay odhanine saa dadku iima arkaane iyo wax la mida kadibna inay ku mashquuliso oo ujeeddadii hadalka aad u dan lahayd way og tahay way dareemaysaa inay kaa leexiso laakiin gabadhu markay ku xiisaynayso way ku dhegaysataa markaad tiraahdo waad qurux badan tahay kadibna hadalka aad sii wadatid way kuu ogolaataa laakiin markay hadalka kaa leexleexinayso oo ay ku leedahay allah waxaa dhacay mataqaanaa maanta xaafadeenna korontadii baa ka gooday allah waxaa dhacay mataqaanaa maanta halkaas iyo halkaas videogaas ma aragtay ujeeddadii aad u dan lahayd ee hadalkaaga aad gogoldhigga uga dhigaysay ood ku furaysay waxay ahayd inaad horta ammaantid ood u muujisid inay qurux badan tahay in aad qalbigaaga markaa qalbigaaga wixii ku jiray baad rabtaa inaad u sheegtid taas iyadoo ku fahmaysa ay hadalka kaa leexinaysaa haddana hadhow intaadan hadalkii mar labaad dib u soo celin ayay waxay ku leedahay waan daalanahay shaqaan ku jira hooya ii wacaysa intay ka dhacday wuxuun bay kuu sheegaysaa kadibna telefoonku halkaas ayuu ku dhammaanaya taa oo micnaheedu haddii si kale loo dhiga ay tahay gabadhaasu wax xiisa oo walaaltinimada ka badan kuma hayso calaamadda shanaad ee lagu garan karo waa in gabadha markaad tiraadid inaan kula hadlaan rabaa ama arrin baan rabaa inaan kaala hadlo daqiiqadda aad telefoonku wada jirtaan tusaalaan ku siinaya waad wacday way kaa qabatay ii warran maxaad haysaa caafimaadkaaga maxaa cusub ayaantan waad la sheekaysatay kadib waxaad weydiisay maxaad hadda qabanaysaa meeshaana iska fadhiya waxaan qabanaya male iyo wax la mida kadib hadalkaagii markaad meelo fara badan soo marmartay waa sida raggu u badan yahay inaad tiraahdid inaan kula hadlaan rabaa oy ku tiraahdo berri baynu wada hadlaynaa oo markaasba ay wax kale kuu keento ku tiraahdo waxbaan samaynayaa ama sidan weeye ama qof bay soo wacay ama ii yarkaadii ama berri si fiican ma wada hadli karnaa iyo wax la mida haddaad aragtid in hadalka ay ka leexleexanayso oo dhanka adigu waxu wadid waasaan hadda kuu soo sheegaya wax yar ka hor aad aragtid tani waxay ku saabsan tahay in telefoon inta u soo dirtay cabbaaraad sheekaysanayseen kadibna aad soo qaaday hadalkii ay hadalka kaa leexinayso waxaad ogaataa taas micnaheedu waa inaysan ku xiisaynin xiisaha ay kuu qabtaa waa iska qof caadiya oo walaalkeeda oo la sheekaysanayso iyo wax la mida haddayse hadalkaaga xiisa u qabto ama ay maalin uun rajaynaysay maxaa yeele dumarku inta badan kuma yiraahdaan waan ku jeclahay ama waan kaa helay si toos intay kuugu yimaadaan haddaad aragtid gabar intay kuu timaado ku oranaysa waan kaa helay oo cad oo muuqata inta badan wax kala jira xaqiiqadana hadalka iga qoran wax kala jira oo inta u dheer gabdhuhu inta badan way xishood badan yihiin kuma dhiiradaan intay nin u tagaan inay ku yiraahdaan waan ku jeclahay ama waan kaa helay iyo wax la mida laakiin maxay ku tusaysaa hadalkaaga inay interested ku tahay inay rabto inay marar far badan kula sheekaysato haddaad saacad la sheekeynaysid haddaad laba la sheekeynaysidba micno iyada koolku lama lahan iyo wax la mida waa iyadoo og ujeeddadaad u socotid kama hadlaya midaan ujeeddada ogeyn way dhacdaa qofku walaaltinimo inuu kula sheekay intaasoo saacad way dhici kartaa laakiin tan waxaan ka wada ujeeddada aad u dan leedahay way fahmi kartaa marar fara badan baad ammaantay marar fara badan baad tiri haddii maaragtay ninka ku helaa wuu nasiib badan yahay iyo wax la mida adigu way u jeedaa in aad ka soo dhex baxday dalladii aad ku hoos jirtay ee walaaltinimada inaad bannaanka timid way kuu jeedaa way ku dareemaysaa iyo wax la mida haddii marka aduu intaasoo dhan sameeyey oo bannaankaba soo istaagay ay ku tiraado berri baan wada hadlaynaa iyo wax nooga dhig waxaad ogaataa qofka bini aadamka waxaa ku abuuran dareen inuu wax ogaado haddii hadda tusaale ahaan aan ku idhaahdo waxbaan rabaa inaan kuu sheego waxaa cad inaadan ogayn wuxuu yahay
laakiin gabadhu markaad bannaanka soo istaagtay oo ay ku dareemayso ujeeddada aad u socotid hadday xiise ka tahay ama ay ku rabto ama ay jeclaan lahaydba in ay maaragtay xiriir kula yeelato kadibna aad guur isla aadaan iyo wax la mida oo qalbigeeda aad saa ugu weyn tahay waxay ku leedahay ii sheeg maxaad igala hadlaysaa laakiin haddii aysan jirin taasu waxay ku leedahay berri marka la gaarana ogow iyadoo qalbi ahaan maskax ahaan soo diyaargarowday baa dhici karta inay kula hadasho kadibna ay ku tiraado waan ogaa walbina warkaan soo wadid walaaltinimadina ku daysid bay ku fiicnayd hebelow walaaltinimadeenna macaan maxaad u burburinaysaa ama waxaa dhici karta in aysan berridii marka la gaaraba aysan kulaba soo hadlinba haddaad wacdidna aysan kaa qabanba telefoonka taasoo caddayn cad u ah gabadhaasu in aysan wax dan ah oo ay kaa leedahay dhinac xiriir iyo guurtoonna uusan jirin calaamadda lixaadna waxay tahay siday muddo kaaga aamusnayd ayay hal mar ku soo raadisay kama wado in gabadhu ay ku diiday muddo intay kaa aamusnaydna ku soo raadisay sababta ay kuu diidayna ay ahayd maxaa yeelay xiriir bay ku jirtay gabadha intay iyadoo xiriir ku jirta aad wax u soo bandhigatid ku diiday iyadoo kule xiriirka aan qofkan la leeyahay baan ixtiraamayaa waxaad ogaataa gabadhaasu inay gabar wanaagsan tahay inay tahay gabar ixtiraam iyo xushmad mudan in ay tahay gabar daacad ah in ay tahay gabar mudan inaad qalbigaaga u dhiibtid haddii gabadhu ay kugu diiday maxaa yeelay wiil kale hore ula socotay haddana markay soo kala dhammaadeen bay ku soo raadisay gabadhaasu maahan gabar xun waa gabar wanaagsan maxaa yeelay waxay ku tusaysaa inay qof dun wanaagsan tahay ixtiraamka ay xiriirkaa shalay u haysay taasoo adiga laftigaaga kalsooni adoonba xiriir gelin kugu abuuraysa in gabadhani ay daacad ku ahaan doonto iga qor hadalka laakiin tan aan ka hadlayo waa mid intay ku diiday sababay kuu diiday aysan jirin iyo wax la mida muddo markay kaa aamusnaata kadibna ku soo raadinaysa waxaad ogaataa markaa ay ku soo raadisay waxay u badan tahay in qofkay la socotay ama cid kaloo ay la socoto niyadda ka jebisay iyo wax la mida in waxay qabato markay garan weyday ee adiga ku soo raadisay aystiri bal kii iskala sheekayso inay niyadda kugu dhisato in aad ammaantid oo tiraad waad qurux badan tahay qofkii waad diiday iyo wax la mida igana qor hadalka marka aad bilowdid oo tiraadid shalay waad diiday qof xun baad ahayd maanta waxyaabaha markaad bilbilowdid isla markaa waxay ku degdegaysaa telefoonka inay gabagabayso iga qor hadalka marka qofku hadduu muddo saa kaaga aamusnaa shalay intuu ku diiday sababu kuu diidana aysan jirin laakiin maanta intay ku soo wacdo ayay waxay isku dayeysaa inay kula kulanto waxay isku dayeysaa inay saacado fara badan kaa lumiso kula sheekaysato ama inay fariimo kuu soo qorqorto iyo wax la mida haddii sabab cad oo shalay kuu diiday aysan jirin waxaad ogaataa shalay qalbigeedu waxay ka sheegaysay baa run ahaa maanta waxa ay dib ugu soo noqotayna waa in aad ka feejignaatid ugu yaraan ood iska hubisid qofka inay daacad ka tahay soo noqoshadani iyo in kale calaamadda toddobaad eed ku garan kartaa waa in gabadhu ay rag kale kaaga sheekayso ma xumo qofku ama gabadhu inay ka hadasho wiil kale oo hadalkiina ay ku keento kadibna halkaa looga gudbo ama arrin isaga ku saabsan inaad muddo ka hadashaan iyo wax la mida laakiin in waxaa dhacda mararka qaarkood dumarku isma oga xiisaha wiilka ay u qabto darteed iyo sida aysan u heli karin iyo wax la mida in hadalkiina inta ugu badani uu qofkaasu haysto kama hadlayo dad fara badan laakiin hal qof oo keliya inuu maantanan haysto shalay baad la hadashay wiilka hadalkeeda wuu ku jiray maalin kale la hadashay haddana hadalkeedu ku jiray waxay ku tusaysaa in aysan adiga xiise ku hayn inta keliya oo adiga ay kuula hadlaysaa waa waxay og tahay markay isaga ka sheekaynayso in sheekadu ay kuugu baxayso maxaa yeelay dhankay hadalka ula socoto ama u wado ayaad ula socotaa taasaana keenaysa in ay kugu soo celceliso qofkaa ka sheekaysa marar fara badan tusaale ahaan wayba kala tageen qofay kala tageen oo kale ama wiilka dibadda ka yimid maaragtay ama wiilka youtuberka ma garanaysaa ama macnaha sheekada highlightka wuxuu inta badan saaran yahay uun qofkaa keliya waadna dareemi kartaa adigu marka waa inaad naftaada qiimaheeda garatid oo aadan qofkan u ogolaanin inuu qof kale maantana intuu kaaga sheekeeyo wakhtigaaga inuusan kaaga lumin midna iska ilaali inaad cara muujisid oo qalbigaaga ay carada ku jirta bannaanka aad keentid oo tira horta kaale maxaa wiilkaa uga sheekaysa taa ragatinimadaada dhaawac bay ku tahay gabar markay tahay oo kuu sheekaynayso u ogolow in ay hadasho waana qaladka rag fara badan ay galaan inay gabadha hadalka ku caburiyaan ama isla markaba uu yidhaahdo uu dareensiiyo inuu ka xun yahay maaragtay qofkay ka hadlaysay wax la mida taasu ragatinimadaada ma tusayso dulqaadkaaga ma tusayso ka dhagayso warka waa laga dhuraa markay dhammaysato oo hadalku dhanku u socday iyo meeshaad u socotayba kolley ama adaa soo wacday ama iyadaa ku soo wacday waa mid uun
hadalku marka uu dhammaado sidii caadigeeda normalkayd conversationka ama telefoonka aad ku jirtaan u gabagabeen marka ku xigto qofku ku soo wacana isku day telefoonkiisa inaadan qaban maxaa yeelay waxaad og tahay rabitaanka qofkan aad u haysid iyo cidda kale lagaaga sheekaynayo adigu naftaada doqon ha noqon ha u ogolaan in maalin walba lagu dhaawaco oo maalin walba dhaawac lagugu soo celceliyo ama rag kaloo facayan maanta dhan laga sheekeeyo iyadoo adiga si toosa laguu diiday taas waxay noqonaysaa in adigu naf ahaantaada aadan wakhtigaaga iska lumin inaadan qalbigaaga dhaawicin inaadan dareenkaaga dhaawac u geysan in adigu naf ahaantaada aad dareentid xasilooni maxaa yeelay qofkani markuu ku soo wacaba xasiloonidaadii oo dhan buu kaa qaadaya kow waad rabtaa kumana ay ogola oo dankaama laha waa midda labaadee wax aad diidaysid ama dhibsanaysid baa laga yaabaa inay kaaga sheekaynayso iyo wax la mida taa marka yaysan wakhtigaaga iyo qalbigaaga kaa dilin naftaada adigu u nax waxaadna garataa qiimaha wakhtigaagu uu leeyahay markaan intaasoo dhan ka soo gudbo ama qodobada aan kuu soo sheegay gabadhu markay ku rabto ama ku xiisaynayso oo ay rabto inay xiriir kula lahaato way adag tahay 99% inay gabar intay ku hor timaado ku tiraado hebelow waan kaa helay waan ku jeclahay taas wax dhacaya maaha maxaa yeelay xishoodka dumarnimo ee ilaahay uu iyada ku abuuray cidday doonta ha u dhalato ayaa ka xoog badanaya dareenka ay dareemayso qofku marka uu wax jecel yahay wuu jilicsan yahay maadaama uu qofku iyaduna ay dumar ahaanteeda ay dareemayso inay kaa heshay iyo wax la mida taasaa waxay diidaysaa inay si toosa kugu sheegto dareenkii kow iyadoo ku jecel oo jacaylkaasi uu jilcinayo waa midda koobaad iyo midda labaad oo ah xishoodkii ilaahay uu dumarka ku abuuray caado uma ahan gabari intay ku soo hor istaagta si cad inay kuu tiraado waan ku jeclaya waa kaa helay hadday taasu dhacdana hadalkaasu waa hadal dib in loogu noqdo u baahan waa hadal u baahan inaad ka fiirsatid wayna dhacdaa marka qaarkood inay gabari adoo dad dhex jooga ay saa ku tiraado iyo wax la mida oo qalbigaaga ay taabato oo aad u malaysid inay ka run tahay oo hadhow markaa wacday ku tiraado walaalkay ma waxaasaa run u malaynaysay waan kula kaftamay iyo wax la mida laga yaaba in adiga kugu dhacday marka way jirtaa waxaa dhici karta xaaladda iyadu kugu dhahaysay markaa oo hadalka kugu sheegaysay inay nooc way badan yihiin xaaladahay kugu oran kartaa waxaa dhici karta wiil marka ay qalbi jabinaysay ama in badan damac kala dhammaan waayey oo ay rabtay inay iska reebto inay hortiisa hadalka kugu tiri waxaa dhici karta in qof ay isla socdeen oo xiriirkii ka soo xumaaday oo si xun u xumeeyey oo khiyaanay oo qalbi jabiyey waayo dadku inta badan sida ay u qaabili lahaayeen ma yaqaanaan marka qof ay kala tagaan ama qof uu xumeeyo waana mushkiladda maanta ina haysato dareen ahaan bulshadeenna in qofku uusan garanayn qaabkii iyo wadadii uu u bixi lahaa marka uu qof niyadda ka jabiyo oo xiriirkii uu ka soo dhammaado oo qofkaas uu soo xumeeyey wax la mid ah waxaana dhacda wiil iyada ay walaaltinimo u arkayay in ay wax ku bilowdo maxaa yeelay waxay rabtaa inay booskii wiilkaas uu ka baxay iyo cid kala geliso igana qor hadalka muddo gaaban baad wada socon doontaan adigu ismoodsiin doontaa inay dunida kuugu jeceshahay maalinta ugu dambaysana waxay ku oran doontaa walaaltinimadeennii ayaa ka macaanayd xiriirka maantayna ka dhexeeya